ardaydii barnaamijka shaqo qaran ee imtixaanka u galayay shirkadda Singapore ayaa waxa ay istalu ka muujiyeen habka loo qaaday imtixaankani iyagoo sheegay in ardayda rasmiga ah ee shaqo qaran ay imtixaankani ku galaysay jaamacadda Hargeysa balse waxa ay tilmaameen in arday kale oo aan ka tirsanayn barnaamijkani shaqo qaran imtixaanka lagaga qaaday hotel Grand Hadi ee magaalada Hargeysa waxayna fariin adag u direen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa xusin mudan in warkani ilaa iyo haatan ay xabsiga ugu jiraan afar wariyo oo ka tirsan telefishinka Ariel magacaygu waa Cabdilla Saciid waxaan ka tirsanahay dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran bishii 30 bishii 7 waxaan u balansanayn in aan u fadhiisano imtixaan leeyni waxay qaadaan 400 oo qof oo laga qaadanayo shaqo qaran oo ay qaadanayso shirkaddan Singapore Energy imtixaankii baa si xor iyo xalaal ah u tartameynay bari iyo galbeed Hargeysa isku keenay goob kaliya Soomaaliland imtixaanka lagu galiyay oo min bari ilaa min galbeed jaamacadda Hargeysa kaliya markii imtixaanka galnay aanu diyaar garowno waxaan wareernay nimaan shaqo qaran ahayn imtixaankiina nala galaya waanu ka hadalnay arinkii markii ka hadalnay adu nimankii oo naga saareen kadib imtixaankii baan galnay si fiican uga soo baxnay ayuma ku baraarugnaa ku warhelnay 300 oo qof oo shaqo qaran ahayn ku galayeen hotelka Grand Hadi waa tagnay indhaha ayaga soo saarnay markaan aragnay annagu waxba kama qaban karno dadkii awood u lahaa baana waxaan sameynay saxaafadda u yeedhnay saxaafadii markii halkan naga qabatay dadka saxaafadii aan tusnay ka xilli meesha tusnay wixii arkeenna saxaafadii inta la isku jabiyay macal kaamiradoodii la xidhay madaxweyne sinaan iyo cadaalad baa hidbalanteenu oo la ku galnay sinaan iyo cadaaladii maanta waa shaqo qaran baa noqotay Soomaaliland dhan shaqo qaran gooban oo cayiman oo la yaqaan bay haydo 100 qof laakiin dad aan shaqo qaran ahayn Soomaaliland oo istaqaan Hargeysa oo istaqaan caawa ku wada fadhida hebel oo garanayo oo kaga tagay aanu tan darar weyn ku maqnaa Hargeysa joogay oo xaafadahooga hurday ayaa maanta soo xaadiray imtixaankii waa kula galeynaa dawladda Soomaaliland oo dhan baa wada noqotay shaqo qaran ardayga aad aragtay ID card buu jabada ku sitaa aan shaqo qaran ahayn waxaan Ismaaciil Ibrahim waxaan ka imi gobolka Togdheer haddana waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa oo ku galay imtixaanka shaqo qaran imtixaankaas oo ahaa inaan saakaan dhameysanaanu galay waxa jiray qolo kale oo dushana laga keenay oo shaqo qaran ahayn oo saakaanu diidnay nirgala sida noogu galimayaan waayo maadaama aan anagu intaas oo bilood aanu soo joognay aan nagu yiri shaqo qaran waxa laga dhaadhiciyay inaad dadkii qaranka tiin aad u shaqeynaysaan cadaaladna la idinku shaqeyn doono idinkuna aad cadaalad u shaqeyn doontaan kadib maanta markaan imtixaankii dhameysanay waxa jiray qolo group la watay oo dad gaar wateen oo ku galay hotelka Grand Hadi waanu soo eegnay waanu soo aragnay markaan soo aragnay waxa jiray in markii dambe la ogaaday in aan anagu shaqo qaranahay in loo soo cagajulay oo xataa xarigna la xiri gaaray marka madaxweynaha waxaan codsanaynaa inuu isagu inuu waxan ka warhayay iyo in kala war uma hayno laakiin anagu cidna cambaarayn mayno laakiin waxaanu leenahay si daacada oo sidii madaxweynuhu ku balan qaaday oo markuu ololeynayay inuu lahaa barnaamijkaasan sameyn doona madaxweyne waxaan ku leenahay hirgeli barnaamijkii oo si wacan u hirgeli Axmed Kilaas ardayda ka tirsan shaqo qaran gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex maanta alxamdulillah imtixaankii si fiican baan u galay intayada galay ee shaqo qaran laakiin mid jirta waxay tahay arday kale waxa jirta dheeraada oo ilaa adu imika tiraahan intii imika fadhiday 300 qof baan ahayn 300 anagu 400 baan ahayn guud ahaan ardayda shaqo qaran inta loogu talagalay hadda se agaasimuhu page-ka shaqo qaran waxa uu soo dhigay oo uu yiri waxa ardayda shaqo qaran looga baahan yahay 300 oo kaliya awal waxay ahayd 400 anu waxaan u fahmay 300 inay yihiin ardayda shaqo qaran boqolka kalena ay yihiin ardayda hadda Grand Hadi imtixaanka ugu jirta ee anagu aan indhahay ku soo aragnay anagu ardayda shaqo qarana hadii laakiin ay sida imika lagu wado hadaanu nahay ardayda shaqo qaran yeelimayno mana yeelino mana aqbaleno imtixaanka dhacay ee lagu qaaday maxaa la yiraahdaa Grand Hadi ee dadka gaarka ee ganacsadayaasha ay wataan ee la iska og yahay ama aqbalino mayno aanka waxa galay dad aan shaqo qaran ahayn markii aanu arinka ka dhiidinay ee ka biyo diidnayna ee cadaalad darrada diidnayna ee u gudbinay muadinku wuxuu arinka u deedifay waanu diiday wuxuu gala wax idinka idin yaala ma hay markii dambe waxaan xog ku helnay dadkaas inay imtixaan ku galayaan kaayadii lamida oo ay magacii shaqo qaran ku galayaan iyagoon shaqo qaran ahayn hotelka Grand Hadi marka arinka aad iyo aad baan uga soo horjeednaa wax la aqbali karana maaha madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne cadaalad darrada dhacday wax ka qabaano Cabdiljabaal Maxamed Xuseen wararka telefishinka Ariel Hargeysa